السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلكسو دوادا برنامج عن ورئيس كلية لناي وزيرك وزارة قرشينتا قرنكا دكتور سعد علي الشريع أو مانتا مارتينوغو برنامج عن كفلان قين دونو أرهما لحيرا هرمارينتا دالكا يو سيدا أي وشقيان هيداها عالميغا يكو ودانيغابا وزيرك وزارة قرشينتا قرنكا وحان وغورين ويدين دونا بالينو سيموغليه أما وفافاهين نوغا سيو بل قاب كان أمام برنامج كان لغو مقعابو قرشها شنطة سنو قرنك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan doonayaa ku bilaabo inaan wax yar idinka sheego wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarka. wasaaraddu waxay ka kooban tahay 5 qaybood. qaybta maamulka iyo xisaabaadka iyo qaybta xogta amba statistics loo yaqaan afkan Ingiriisiga iyo qaybta qorshaha amba planning la yiraahdo iyo qaybta coordination amba xiriirinta hay'adaha samafalka iyo diiwaangelintooda iyo qaybta horumarka amba developmentka oo qaybta qaabilsan xafiisyada gobolada. lixdii gobol ee sharciga ahaa ee hore gobol walba wasaaraddu waxay ku leedahay xafiis bay ku leedahay meel bay joogtaa. sida ka warhaysaan amba qof ha ahaato amba bulsho gaar ah ha ahaato amba qaranba ha ahaatee harumar waliba wuxuu ka bilowdaa hami iyo hindise iyo qorshe iyo tacab. intaa marka la isdaba dhigo ayuun baa lagu gaadhaa horumar. annagu markii aan nimi bishii June 2010 waxaan ku jiraan wasiiradii ku soo biiray dawladda oo magacaabay madaxweynuhu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxa lagu qoray wasaaradda qorsheynta. su'aashii ugu horreeyay aan weydiiyay waxay ahayd shaqaalaha maadaama aynu nahay wasaaraddii qorsheynta qorshe miyaynu leenahay. jawaabtu waxay noqotay runtii markaa maya. dabadna markaasaanu bilownay inaan ka hawlgalno sidii qorshe qaranka loogu sameyn lahaa iyo himilaba amba higsad. waxaanu hawshaanu bilownay dabayaaqadii 2010 waxaynu u qaadatay ilaa sanad iyo jarjar baynu u qaadatay. waxay noo dhammaatay oo aanu dhammaystiray qorshihii iyo higsadkiiba 2012. marka higsadku waxa weeye waa 30 sano waa ilaa iyo 20 sodonka. waxa la yiraahdaa Somaliland Vision 2030. qorshuhuna waxa weeye waa qorshe 5 sanadooda oo ka bilaabmaya 2012 soconaya ilaa 2016. qorshahaas wuxuu ka kooban yahay qaybo. waa qaybo markaa ku aadan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo ka turjumaya waxqabadka dawladda iyo adeegga bulshada loo sameeyo. wuxuu ka kooban yahay 5 tiir buu ka kooban yahay. tiirka maamulka, tiirka dhaqaalaha, tiirka kaabayaasha, tiirka arrimaha bulshada iyo tiirka deegaanka. 5 tiir buu ka kooban yahay. marka tiir walba laftiisu wuxuu leeyahay waaxyo leeyahay hoos imanaya. midna tiirka dhaqaalaha oo kale waxa imanaya qaybaha amba wasaaradaha beeraha, xoolaha, kalluunka, ganacsiga, waxa laaliyo wixii dhaqaale la xiriiro dhan ayaa hoos imanaya. ka bulshada sidoo kale waxa hoos imanaya tacliintii baa hoos imanaysa, caafimaadkii, biyihii, saas bay kala hoos imanayaan. qorshahaas 5 sanadooda waxaanu qiyaasnay inay ku baxayso lacag dhan ilaa iyo waa 1 bilyan iyo 200 kun oo dollar iyo 200 milyan oo dollar in hadban filayaa. waxaanu ku talagalnay lacagtaas amba miisaaniyadda loo baahan yahay in 5 sanadood waddanka la geliyo lagu horumariyo inay ka timaado budgetka dawladda in kalena inay ka timaado qurba jooga inay ka timaado qaybta ganacsiga amba gaarka loo leeyahay in badanna inay ka timaado
hay-adaha samafalka amba bahda caalamka inay ka timaado ilaa 80% in ka badan baan ku talagalay xaggooda inay ka timaado sababtuna waxa weeye inaka miisaaniyadeenu way yar tahay waxaana ku baxdaa inta badan hawl socodsiinta waxaabay u badan tahay mushahaaro marka inta ka soo hadha ee lagu isticmaali karo mashaariic horumarin way yar tahay inkastoo runtii aanu aad u kordhinay sanadii u dambeysay oo aanu gaarsiinay waxaan isleeyahay ilaa boqolkiiba waxaanu qiyaasanay in maalan dowladaha hoose oo kale in boqolkiiba 30 ay noqoto mashaariic wasaaradaha badidooda mid walba mashruuc ayaa loogu daray marka inkastoo runtii aanu dadaalay sidii loo kordhin lahaa miisaaniyadda qaybta loo qoondeeyey amba meesha loo dhigay mashaariicda horumarka haddana miisaaniyadeenu maadaama ay iska yar tahay baahideenu ay aad u badan tahay waxaan miisaankaanu saaray amba culayskaanu saaray sidii wax looga heli lahaa bahda caalamka oo isugu jira hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay-adahan madaxa bannaan amba aan dawliga ahayn loo yaqaano INGOska hay-adahaas INGOska loo yaqaano iyo hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhaxeeya labaduba lacagtayna siiyaan waa lacag si dadban deeqbixiyayaashu ay u maalgeliyeen inagu deeqbixiyaa toos xidhiidha inta badan lama lihin oo maadaama weli aanu ictiraafkeena aynu sugayno aynu ku jiro dadaalkiisii heer dowladda ay toos wax noo siiyaan weli maynaan gaadhin laakiin dee dowladuhu iyagoo qirsan jiritaankeenna iyo maxaan idhahdaa rabitaanka ummaddeenna ayaa waxay noo soo mariyaan hay-adaha caalamka ah amba kuwa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa amba kuwa madaxa bannaan ayay noo soo mariyaan marka waa gacantaa dadbanba inta badan aanu ka helnaa si u badan yihiin waxaase dhowaan aanu bilownay in la sameeyo sanduuq amba trust fund la yidhaahdo oo ay bilaabeen dowladda ingiriiska iyo dowladda deenishka iyo dowladda norway saddexda waddan ayaa bilaabay lacagta inta badan dowladda ingiriiska iyo dowladda deenishka ayaa bixinaysa mashruuca waxa la yidhahda Somaliland Development Fund ayaa la yidhahdaa kaasi wuxuu kuwii hore kaga duwan yahay kuwa hay-adaha sida dadban laynoogu soo mariyo inta badan hay-adaha ayaa iyagu markaa go'aamiya waxay noo qabanayaan iyo meesha ay ka qabanayaan iyo xilliga ay qabanayaan iyo siday u qabanayaanba mararka qaarkood way nala tashadaan laakiin runtii go'aanku inta badan iyaga iska leh sanduuq wuxuu kaga duwan yahay go'aanka wixii lacagta aynu ku samaynayno innaka iska leh laakiin adhuto dhaqangelinta marka timaado waxay naga caawinaya oo si wada jira aynu ugala shaqaynaynaa shirkad madaxa bannaan oo private ah oo maxaan idhahdaa u xil saaran maamulka mashaariicda wejiga dhismaha marka taasna ka wada shaqeyn marka taas runtii kaga duwan yahay waa tallaabo ka horeysa oo ka wanaagsan tallaabadii hore insha Allah bidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa marka u dambaysa in sida caalamka inta kale ama duwalka kale ee soo korayaba in toos laynoo siiyo inaka lacagaha markaynu kaaynu go'aansano deeqaha layna siiyo oo dhan aynu ka talino oo go'aansano waxaynu ku samaynayno gelinana marba meesha inoo mudan marka taas weeye runtii geedi socodkayagu iminka waxaanu joognaa marxaladii sadadban laynoo siin jiray marxaladda labaadnu hadda bilownay waxa weeye waa taa sanduuqa marxaladda saddexaad aynu doonaynu gudubnaana waxa weeye waa taa tooska laynoo siinaya insha allah ساعة وسير مركا الله سنة قضاء قرشها شنطة سنة وساردها كلا يو هيدها الدولة قاب كله فلين لها يو سيدي أي وهرجل لها برنامج كده ما كوضع هذا شيء ما إسلام مال لكرتين مساء فلنتي سوولي ما جودا كشين horta qorshaha qaranku wuxuu ka kooban yahay qorshayaasha hay'adaha dawliga wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaanba qorshuba waxa weeye waa qorshayaal la soo ururiyay weeye qorshayaasha wasaaradahana iyaga curiyay oo iyagu ka yimi wasaaraddu walba waxay soo gudbisay oo soo qadintay mashaariicda ay doonayso inay fuliso 5 sanadood ee soo socda sanad walba mashaariic gaar ah ayaa loogu talagalay mashaariicda qaarkood way soconayaan sanad way ka badnaanayaan marka runtii wuxuu ka tarjumayaa oo ka jawaabaya qorshaha guud ee qaran ee 5 sano wuxuu ka tarjumayaa oo ka jawaabaya qorshaha gaar ee wasaaraduhu ay leeyihiin
طبعا imika waxaynu ku jiraa sanadkii 2014 2012 waa la bilaabay markaa waa lagu guda jiraaba qorshayaasheenu ugu talagalay 2 sanadoodna soo dhaafay waxna way ka fuleen waxna wali waa qabiyo kama fulin okay haddaan su'aal kale saacad wasiirku weydiiyo waxaad in yar iyadana faahfaahin naga siinayd bal qaabka hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay iyo wasaaradda iyo Soomaaliland guud ahaanba si ay u wada shaqeeyaan hay'adahan samafalka ee caalamiga iyo hay'adahan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuwa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay nagala joogay ilaa 20 baa halkan nagala jooga qaarkoodna xafiisyo waaweyn bay ku leeyihiin qaarkoodna wax laga yaabaa inaan xafiis baba ku lahayn marna yimaadaan marna ay maqan yihiin hay'adaha samafalka caalamiga waxay nagala joogay ilaa 70 bay nagala joogaan qiyaastii ayay nagala jooga hay'ad waliba amba hadan kuwa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa amba hadan kuwan maxay dhahday samafalka inta badan waxay ku takhasusaan qaybo gaar ah qaar baa laga yaabaa inay ku takhasusaan waxbarashada qaar baa ku takhasusa biyaha qaar baa ku takhasusa xagga amniga qaar baa ku takhasusa maxay dhahday xagga maamulka marka horta hay'ad waliba inta badan waxay ku xiran tahay wasaaradda shaqadeedu ay khusayso amba waxa la wasaaradda line ministerka u ah habkii noo shaqeeyana waxa weeye had iyo jeer waxay leeyihiin qorshe sanadeed marka qaarkood qorsho 2 sanadeed amba qorsho 3 sanadooda hataa ilaa qorshe 5 sanadood kale oo ku saabsan qaybta ay ka shaqeeyaan iyagu dabeedna haddii markaa ay inta badan qorshaha ay samaysteen ay deeq-bixiyaasha ula tagaan deeq-bixiyaashana ay u maalgeliyaan dabeedna hawlihii loo maalgeliyey ayaa waxay kala shaqeeyeen wasaaradaha markaa shaqadooda khuseeya marka horta sidaas bay noola shaqeeyaan dabcan maadaama ay tahay yacniga deeq si dadban laynoo soo mariyo gacmo badan soo martay dhaliisha ugu weyna leedahay waxa weeye wax laga yaaba wixii deeq-bixiyuhu soo dhiibay hay'adiin in badan aanay naga soo gaarin laakiin wixiina soo gaara waxay kala shaqeeyaan marba wasaaradda amba hay'adda qaabilsan marka qaarkoodna hay'adaheena samafalka ah ee wadaniga ah bay la shaqeeyaan si ay u fuliyaan mashaariicda marka ay u soo qaataan iyo dhaqaalaha ugu dambeyntii saacad wasiir haddaan su'aal ku weydiiyo dhawaan waxaa jirtay wasaaradda sida imka noo sheegtay qaybaha koobanta waxaa jirta qaybta xog ururinta kale waxaa jirtay qaybtan xog ururinta in banka horumarinta Afrika uu hawl mashruuceed la waday balse aad dhawaan ku gacan saydeen markii uu Soomaaliya lacagtaas baarintaas iyo xogtaas qaybta kamida wasaaradda qorsheynta qaranka waxay qabato bal dad faafinays bangiga horumarka Afrika amba African Development Bank loo yaqaan af Ingiriisiga wafdi ballaaran oo ka socday waxa noo yimi 2012 markii hore runtii waxaan ka codsanay inay naga caawiyaan mashruuc la xiriiray sahanka qoyska amba household survey haduu mashruuca markii dambe World Bank amba bangiga dunida ayaa naga caawiyay dabadna waxaan go'aansanay inay naga taageeraan tayeynta qaybta xog ururinta amba qaybta statistics ee wasaaradda markaas aan isla garanay mashruuc runtii muddo badan ay soo jiitamay aduu markii u dambeysay waxay bilaabeen runtii inay xayeysiiyaan ciddii arrinka wax naga qaban lahayd amba khubradii wax naga qaban lahayd tayeynta qaybtaas marka xayeysiinta ayay ku soo qoreen website-kooda ay waxay ku soo qoreen waxaan ilaadaa in ay lacag ay siiyeen dawladda federaalka ah lacagtaana lagu tayeyn doono xog ururinta Soomaaliland taasoo runtii anaka noo cuntay weeyay waayo yani hay'adaha caalamka oo dhan uu ku jiro bangiga dunida inkastoo aan deeqna ictiraafsanayn oo aynaan xubin ka ahayn bangiga dunida iyo bangiga Afrika toona haddana wixii geeska Afrika loogu talagalay wixii naga soo hagaaga ayaa toos laynoo siin jiray marka inta ambassador ban laynoo siin jiray laakiin waa laynoo qoondeyn jiray
laakiin ma dhacdo inana aqbali mayno haruna ma inaan aqbalin in lacag marka hore laynoogu dhiibay federaalka Soomaaliya in federaalka Soomaaliya inaka ina siiyo si weeg inaynu aynu ka mid nahay federaalka Soomaaliya marka runtii arrinkaas ayaan ka biyadiinay dabcan kaana qaadan mayno bangiga horumarka Afrikana ka qaadan mayno cid kalena ka qaadan mayno ciidayadu meesha doonto dee fasax ka soo qaadanaysa amba wax soo weydiisanaysa waa meesheeda laakiin waxaanu ka filaynaa hay'adaha samafalka iyo hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaba iyagu eegaya baahideena gaarka in wixii ay noo qoondeeyeen in wax naga qabtaan baahiyaha gaarka ay markaa amba si toos ah inoo siiyaan amba si dadban inoo soo mariyaan hay'adaha markaa fuliya laakiin marnaba aanay ka muuqan qaabka la inoo siinayo iyo sida loo dhigayo sida loo oranayo toona in wadan aynaan ka mid ahayn aynu ka mid nahay inagu geeskan Afrika waxaanu leenahay wadamo jaar ah oo la qaybsano wadanka Djibouti baa jira wadanka Ethiopia jira wadanka Soomaaliya federal Soomaaliya ayaa jira marka wadankaas wuxuu meelkii noola mid yihiin wadamada kale jaarka aynu kala madaxa banaanahay waxa naga dhaxaysa wada shaqayn iyo jaar wanaag bay naga dhaxeeya laakiin waxay isugu soo dhiibid naga ma dhaxayso gudoomiyaha wasiir maxaad ku tilmaami kartaa waqtigan Somaliland maadaama ilaa bishii June labada ka iska joogtay horumarka Somaliland muddadaas imika la joogo ama xukuumadda madaxweynaha maadaama wasaaradda qayb horumarka ay qabatay maxaad ku tilmaami kartaa horumarka la gaaray ma yahay mid halkii hore ee loo taagnaa markii xukuumaddii hore ay ka joogtay iyo waqtigan mid faqad tele boo dhaxeeya والله أنا وحن قواس دحدا سنوات إنه هرمر وين سمعناي ومالين ما يتحرق يمكن يجري لقصوا بالعودة إنتي نلصون ونحن حرمدين هرمر كانوا قاعدين دحدا سنوات إنه دح سنوات والله مذا هرمر نوعاسين إنه سمعنا رنتي أنا ومالين مايو مركي دولة المدحوينة وكي هي أحمد محمد سيلانيو عيتمي وقرن كرتن حوله مركي ينو تاجنا waxa qabiyaha bridge-kii Hargeysa waxa lacagtii Giimbaarka ay ka socotay maxaan ilaahay waxa ka socotay magaalada Burco ciidankeenu darajo muu lahayn maxaan ilaahay mushaharada si fiican looma heli jirin deyn badan oo dawladda lagu lahaa ayaa jirtay mushaharka la bixin jiray aad buu yaraa wadooyinkeenu way burbursanaayeen waana yaraayeen xafiisyada dawladdu waxay ku jireen xafiisyada inta badan Ingiriisku markii uu joogay uu noo sameeyay nooga tagay xafiis goboleedka waxa soo bedeleen maanta muddo 3 sanadood kaliya xagga adeegtaba waa runtii waxa la sameeyay harumar muuqda oo la taaban karo haddii xafiis tahay haddii wada tahay haddii mushahar la kordhiyay tahay haddii lacag la bedelay ay tahay haddii darajo maxay dhahdaa la siiyay ciidankeena ay tahay haddii xitaa doorasho tahay xitaa doorashada soo galay 3 sanadood soo dhameeyay maxay dawladda hoose intii kale imkanu diyaar garoobeyna marka runtii xaq wala adeegtaba haddii xaq waxbarasho haday tahay xaq caafimaad haday tahay yacni waxtar la taaban karo ayaa dhinaca adeegtaba aad runtii aad ka arkaysaa taa micnaheedu maaha inaynu gaarnay halkii aynu higsanayno doonin ma wali jid dheer baa inoo haray dhibaatooyin badan baa wali taagan wadanka oo u baahan wax ka qabasho shaqo la'aan baa ugu horeysa biyo kama wada qabliin tamartu way nagu qaali mashaakil bulsho baa jira qaad baa jira runtii oo seeltiisu kamida aafooyinka maartay maanta haysta wadankeena guriga la'aan baa jirta wali abaara soo noqdo oo mutaqaana ku talagalka wanaagsan inaan kala hayn baa jira marka runtii waxa jira waxyaabo fara badan oo aynu jecelahay inaan wax ka qabanno inagu himiladeenu waxa weeye inuu wadankeenu noqdo mid harumaray inuu noqdo mid qof wal oo doonaya shaqada uu shaqo ka helo inuu noqdo mid dhalinyaradu ay ku nagaato oo hamigoodii himiloodu uu noqdo sidii wadankeena ay u joogi lahaayeen uga dhaqan lahaayeen maxaan rahdaan ugu dhaqmi lahaayeen marka inuu noqdo mid xagga dhaqaalaha runtii ka madax bannaan ayaynu jecelahay in waxa aynu cunno amba isticmaalo inuu noqdo kuwii samaysta iyagoo ayaynu jecelahay inaynu cunto iyo biyo iska filan ayaynu jecelahay waxaas runtii waa himilooyinkeena aynu leenahay
wax badan waynu ka qabanay in badanna waynu hadhay tusalahaan dadka qaarka isweydiin markay noqodo horumarka ay aqrisay sida ummadda madaxweynaha ay adkaysay ma taageerada dawladda ma idinka lacag iyo ka ixtimaale waxyaabaha la qabta jirtay xagee maxaa la fududeeyay sida ka dambaysta in waxyaabaha degdeg ah xasan la qabto maxaa waxaa ka mid ah horta marka ugu horeysa hami iyo himilo iyo dadaal la yimi ayaa horta ka koowa waxaa ku xigta in badan oo inagu aynu samaysanay inaynu budgetkeena runtii aynu ka samaysanay budgetka markaaynu nimi wuxuu ahaa ilaa 50 milyan buu ahaa ayaan filayaa maanta marka la isku daro dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan waa 212 milyan oo dollar weey marka wada arki kartaa farqa ka dawladda dhexe oo kaliya wuxuu ka badan yahay 150 milyan marka horta waxa weeye waa hamigii la yimi iyo dadaalkii la yimi iyo maxaan idhaahdaa inagoo isku tashanay oo dawlad ahaan iyo dad ahaanba isku tashanay iyada laftigeeda maadaama runtii ay noo suurta gashay inaynu abuuro jawi nabadgeliyo xasilooni jawi harumar laga samayn karo waxay dhiirigelisay hay'adaha caalamka ay dhiirigelisay inay wax nala qabtaan marka runtii wax qabashooda laftigooda waa muhiim inaynu qiro iyo gacanta ay nasiyeen laakiin nakuna de waxaanu sameynay weelkii jawigii baynu abuuray wax laynugula qaban lahaa haddayna jawiga abuurin wax laynala ma qabteen okay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaas waxa wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo maanta xafiiskiisa noogu waramayay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV wareysi gaar oo kaga hadlayay arrimo badan oo dhinaca horumarka iyo hawlaha ay wasaaraddiisu qaranka u hayso nagu siiyay aad iyo aad buu wasiirku mahadsan yahay intaas waxaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijkii aanu kaga hadlay dhinaca horumarinta Somaliland waxa barnaamijka soo saaray anigoo Salebaan Ibrahim Xaashi waa sawir qaade Sakariya Sudaysi iyo waliba editingkii Cali Mahdi Jibriil